عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك نجد سنيسان وشبكة ورركا بو عمي أونلاين سيدي أي ساكا ويب سايت دا بوتلان كسو بحا أما ويب سايت دا سوماليا وحكا قرا كود لغو سو قري waxaa jirtay eedeymo lagu qoray oo la xiriirinayay magaalada Boocame ama degmada Boocame in ay tahay deegaanada ay soo maraan kooxda loo yaqaan al-shabaab iyagu markaa ku sii socday galbala. haddaba shabakada Boocame online ayaa waxaa u suurooday in aanu la xiriirno qaar ka mid ah dadka ka hore uga soo shaqeyn jiray deegaanada ama degmada Boocame. waxaa qadka iyo حيله أو يسووا قفك لذا سوحكتي وركن هذا اللي وشجعي إذا عدها مركا وحقتك التليفون كهذا يقول شره داهر فارح حسين أو يسووا كسوغان مجال كمبالا ودنك يوغندا وهالكاس أو جامعات كجرو داهر وحو مجال كان نقضي قدومية كحجين يسلا سوكله قدومية سيدا سوكلنا وحا يقول شره قدك التليفون كحيله حسن شره حيله iyo daahir labadinaba waan idinku soo dhaweynaynaa shabakada wararka Boocame online. waxaan jecelnahay inaanu marka ugu horeysa bal ku bilaabo حيله wararka saaka qaarkood shabakadaha Soomaalida waxa ku qoraa deegaanka Boocame arrin lala xiriirinayo al-shabaabka inuu marin u ahaa. bal warbixin kooban ma naga siin kartaa arrintaas؟ والسلام يا شبكة أونلاين. السلام يا سلام كبعد وحوي أنا ورئيسي أنا يعني هاي كبر الشركة ووح بينا وصل إلى غاب للحين بو عمل الشباب نتشوفه وانا سمع تيم الله غلقه وحوي عرفت وحوي ورئيسي يعني لحد الدرس الكبير وحي حيد واللي يجي قرح حد قوة خد حيبوه عمل ومحا أرنتا كورن وحان البرجي هوري طريقة كوفري حكينا كده لما قبليقة لما كان قبليقة هذا عن الدرخة فكسكني لما كي قبليقة هذا برجي قرح بعيدا اللي جدا بيسي دو عمل الرجلية إتعافي هيدي ورئيسية وحانو كهل اللي أدارة كتيرا ماشا في خلد هي حريكها اللي تكتير آبان ونقلاي وحانو أنه منا ورن وبسيط دلكرنا حتى الله اللي مع أنا بنفسي جولي يعني ضد قري. حيل وشبكتها عاد موجود ورقة إن لو قيديي أيا وحوي إلى يطبن شبكدود جاران أدوكنا واحد معني كسو جدا دكان كبوعمة سيدا نوجنا هينا كوحدة على الشباب اللي بتحوج لا كويسة Soomaaliya oo dhan hase ahaatee Soomaaliya oo dhan meel walba waa ay joogtaa se Boocame waxay xuduud fara badan ay la leedahay deegaano kale oo ka tirsan Puntland. marka lama xusin magacyada magaalooyinka kale waxaa la xusay kaliya magaalada Boocame iyo gobolka Sool oo la isla xiriiriyay taas oo ay dadka uga fajiceen. marka adigu ma waxaad leedahay warkaas sidaas waxba uma aanan oran warkaas waa wan been abuura؟ أنا وحن كقدر يعني وعن حناك إن جالك كوفر جالك حياتي ما يصير دكتور بيتنا كوفر يسوي مرتين أنا هو قبلي معي حياة ما عن الشباب معنا يعني كلمة الشباب بالله الشباب والله ولا تجعلها لكن واحد شباب معنا عنا يتشوجه أنا وأنا الدولة يسكع أنا قاعد أتقاعد أنا قاعد معنا وصل بالله سبحانه وتجيب بالله ما يجينا بالله ما جرت marka anaga been kana samaysa wax ay kana samayn midka waa wax khalad arinta anagu mooran ma hayno wasiidada jawxiisii iyaga ka jawaab doona aad iyo aad ayay umaysantahay xayla dhinaca kale waxa sidoo kale uu ku jira daaray Faarax Xuseen oo isagoo hadda jaamacad ku jira wadanka Uganda magaalada Kampala. daahir adigu naftigaaga magaalada Boocame waxaa ka noqotay gudoomiye ku xigeen ilaa iyo gudoomiye arrintan markii aad maqashay sidee kula muuqatay؟ haddaan su'aasha lagu soo noqdo arrintaasi aad bay noo taabatay ama cid kasta oo deegaanka ah ama mas'uuliyiinteeda ha noqoto ama dadka shibilka ah caadigaaba ha noqoto
waxgaradkeeda iyo odayaasheeda aqoon-yahankeeda dhalinyaradeeda aad bay runtii arrintaas u taabatay waayo wax boocame runtii lagu yaqaanay oo laga filayey oo laga malaysanayey marnaba ma aanay ahayn waana filayay runtii warka kan war sidaa uu u yahay loo yiri inaanu ahayn oo guddoomiyaha uusan u oranin markii warkaan uuna soo gaarayna waxaan ahaa dadka ugu horreeyay oo guddoomiyaha la xiriiray sidaa uu hadda idiin sheegayo ee warbaahinta u sheegayo ah inaanay waxba ka jirin isaga warkiisa aanay ahayn war la buunbuuniyey oo la turjumay oo la weexiyey inuu ahaa ayuuna runtii ii sheegay aniga aqoontayda iyo xogogaalnimadayda boocame waa la yaqaanaa waxa ay caan ku ahayd oo runtii ku magacaawnayd oo sharaf iyo muxuu ahaayeto magac dheerba ay ku lahayd deegaanada xagga nabadgelyada waxaa lagu yaqaanaa oo runtii aad dadku ay magaceeda maqla ay ku yaqaanaan sida ay hoyga ugu tahay soo dhaweynta iyo nabadgelyada sida ay usoo bidaan dadka deegaanka ah ee gobolada sool iyo sanaag iyo cayn ku nooli marka ay danahooda ka wada hadlayaan ay isugu yimaadaan ee ay uga tashadaan ee ay saldhiga ugu tahay baa dadku aada ugu yaqaanaa waad garan karaysaa meel noocaasi ahay nabadgelyadeedu halka uu sida uu noqon karayo waad sawiran kartaa runtii waxay ahayd meelaha ugu nabadgelyada wanaagsan areada bay ahayd markhaati waxaa ah xilligan ka ahaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka dadka ajaanibta ee noo yimaada hay-aduhu istaafyo ma aysan soo kaxaysan jirin annaguna kuwa kuma aanan dari jirin nabadgelya umari jireen miyigay tegi jireen tulooyinka degmaday tegi jireen waxa weeye marka ay halkaas soo galaan ayay nabadgelyo buuxda dareemi jireen runtii way ku xisaabtami jireen dadka ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo horumarinta deegaanada marka ay boocame yimaadaan meel amni ah oo muxuu ahayeto safe ah oo ay ku badbaadayaan iyaga iyo hantidooda iyo gaadiidkooda bay ahaan jirta dhammaan deegaanada nagu xeeran ee degmada ku xeeran intaana guddoomiyaha ka ahaa shilalka ugu badan ee ka dhici jiray waxay ahaayeen waxyeeleynta loo geysto hay-adaha samafalka wada ee dadka gargaaraya gaadiidkooda la dhaco iyagoo wax la yeelo weli hal case oo kamida caseskaas oo lagu xiriirin karo wax amni darra oo deegaanka ka dhacay ma jiro tan hadda laga hadlayaana de waaba arrin kaba sii fog noocaas ah qaabka u sifaysan in lagu suurayn karo in nimanka magaca leh la sheegaya ay joogaan oo ay dhibaato ka geysanayaan oo ay dadka waxyeelo ugu geysan karaan runtii waa arrin aad uga fog xaqiiqda weeye waana arrin runtii aada noo taabatay haddaan nahay mas-uuliyiintii hore ee deegaanka sidaa uu guddoomiyaha hadda idiin sheegayana waxaan annaga hubnaa isagana ad afkiisa ka maqlaysaan arrintaasi wax horena u dhacay inaanay ahayn wax dhici doonana insha allahu tacaala aanay noqon doonin baanu rajaynaynaa marka sidaan u arkaa